agaasimihii hore ee hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo dhawaan madaxweyne Farmaajo u magacaawday la taliyihiisa amniga qaranka ayaa saaka ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib muddo ku dhawaad bil ah oo ku maqnaa dalka Turkiga. diyaarad gaar ah oo qaada 17 qof isla markaana laga leeyahay dalka Turkiga ayaa la sheegay inuu soo kireystay agaasimihii hore ee hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Fahad Yaasin sida ay sheegeen ila wareejyo ka tirsan garoonka Aadan Cadde. xubnahan ayaa sidoo kale ay sheegay in diyaaradda ay saarnaayeen dad ka yar 17 qof oo ka tirsan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya aadna ugu dhow Fahad Yaasin. diyaaradda ayaa Muqdisho soo caga dhigatay saakay 12 iyo qadar 30 daqiiqo ah waxaana garoonka Aadan Cadde ugu diyaarsanaa gaadiid iyo ciidanka ilaalin jira oo kaliya. garoonka Muqdisho kama jirin dhaqaaq ciidan sidoo kale magaalada Muqdisho lagama dareemayo isbedel ciidan iyo mid siyaasadeed ba imaanshaha Fahad Yaasin kadib. sida aan xog ku helnay Fahad Yaasin ayaa toos loogu gudbiyay guri ku yaala xarunta madaxtooyada Soomaaliya. dad kala duwan oo aan la hadlay kuna dhow xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ii sheegay inaysan jirin markii horeba qof u diidaneed in Fahad Yaasin uu dib ugu soo laabto waddanka lagana been abuurtay safarkii ugu dambeeyay markii lagu hakeeyay garoon ku yaala dalka Djibouti. ila ka madax bannaan xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ayaa dhankooda ii sheegay in Fahad Yaasin uu ku yimid natiijo ka dhalatay wada hadal ay wadaan guddoonka golaha shacabka madaxweynaha maamulka Galmudug iyo xubno wasiir ah waxaana sababta lagu sheegay dhowr calaamadood oo ay qayb ka yihiin 1 garoonka Aadan Cadde kama jirin dhaqaaq ciidan sidii ka dhacday sabtidii toddobaadkan markii la sheegay in garoonka uu ku soo wajahan yahay agaasimihii hore ee hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir. dhaqaaqaas ciidan oo toddobaadkan sababay inay Muqdisho imaan waayaan duulimaadyo caalami ah oo ku soo wajahnaa Soomaaliya kadib markii ay warbixin ku heleen inay jirto cabsi ah in garoonka Muqdisho uu wajihi karo isku dhacyo ciidan. 2 Fahad Yaasin kaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo waday labadii gaari oo markii hore ilaalin jiray iyo ciidankii la socday waxayna taasi ay muujinaysaa in Fahad uusan ku jirin qalqal amni iyo sidoo kale inuusan muujinin feejignaan amni oo dheeraad ah oo ka badan midii hore. sida ay sheegeen ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasin waxa uu qaar ka mid ah ilaalada kontaroolada madaxtooyada ciidankii la socday ay ku marsiyeen in gaariga uu saaran yahay Yaasin Faray oo ah taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada ee gobolka Banaadir oo xilka ka qaaday Janaal Bashiir Goobe laakiin madaxweyne Farmaajo u magacaabay agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'adda nabadgelyada. inkastoo xal iyo shalay Muqdisho ay ka socdeen kulamo lagu dhaxdhaxaadinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Roble haddana waxaa loo arkaa in Fahad Yaasin uu isbedel ku sameyn karo xaaladda siyaasadeed ee waddanka. Fahad waxaa la sheegaa inuu yahay shakhsiga qora go'aanada ugu dambeeya ee madaxweyne Farmaajo ama lagala tashado waxaana go'doonka siyaasadeed ka saari karaa madaxweyne Farmaajo oo tan iyo bilowgii bishan ku jiray muujada siyaasadeed oo culus kuwaasoo la aaminsan yahay in hoos u dhigeen rajo kasta oo ay ka lahaayeen shacabka Soomaaliyeed. dadka la fagura arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in madaxweyne Farmaajo uu helay garab culus oo ka fududeyn kara xaaladda cakiran ee uu ku jiro waddanka gaar ahaan qalqalka ay wajahayso madaxtooyada Soomaaliya. haddaba maxaa maalmaha soo socda laga filan karaa xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib imaanshaha Fahad Yaasin?